taariikhdu waa mudan, waa jire markhaati leh. dunida aynu ku nool nahayne waa meerto, waxaana ka dhex buuxa dhacdooyin kala nooc ah. maxaa yeele waa walboo dilaaca waxaa ku soo wajaha wejiye cusub oo nololeed, haddii ay ahaan lahaayeen farxad ama murugo. daqiiqad keliya ayaan dareemay wax aanan garanayn goorta ay ii yimaadeen iyo halka ay igaga yimaadeen. wax baan dareemay, laakiin ma tusin karin ruuxa iigu dhow, ma arki karin, mana taaban karin. mar qura ayaan dabaashay iftiin iyo layd udgoon lagu laray. dhaxan oo ay dareemayn dadka kale ayaan keligay dareemay. si cabsi ay ku dheehan tahay ayaan waxaan isku dayay inaan taabto jirkayga si aan u ogaado waxa igu dhacay. mar keliya ayaan arkay ruux aanan garanayn oo horteyda taagan, misena igu odhanaya, waan ku salaamay, magacayguna waa Xamdi. waxaan wada kulansaday naxdin iyo gariir. waan awoodi waayey inaan si dhaqsi ah ugu jawaabo. isla waqtigaa su'aalo fara badan ayay maskaxdaydu isweydiisay oo aan jawaabahooda heli kari waayey. waxay ahayd gabadh qurux iyo qaayo alle u dhammeeyey. sida wanaagga iyo qiimaha badan ay iila hadashay ma ahan waxaan qiyaasi karo hadda. si xushmadii ay ku dheehan tahay ayay waxay iiga dalbatay inaan la fadhiisto in yar oo waqtigayga ka mid ah. gacan ku qaad yar oo ay gacanta ku wadatay ayay waxay ka soo bixisay bashqad ayadoo igu odhanaysa, 5 bil ka hor ayaan rabay baqshadan inaan ku siiyo, laakiin waan ku heli waayey. mar haddaan ku helay adiga, maanta waa ii farxad. maxaa yeelay 2 maalin kadib anigii familkeyga waxaan doon dirnaa Ameerika. daqiiqadii ay bashqadda gacanteeda ku soo dhacaysay waxay iga codsatay inaanan furin bashqadda ayadoo ila joogta. way iga istaagtay ayadoo ii gacan haatinaysa ayaana iigu dambaysay. waan furay bashqaddii, misena waxaa ku qoran, magacaygu waa Xamdi. waxaan ahay ruux si dhaba kuu jeclaaday aragtida koowaad ee aan ku arkay, laakiin kuu sheegan weysay jaceylkeeda. taasna waa midda ilaa hadda ka qoomamaynayo. waan ogahay inaadan garanayn, taasna waa midda sababtay in aan kuu sheegan waayo jaceylkeeda. laakiin anigoo ku kalsoon naxariistaada, waan ogahay inaad isoo raadin doontid. sikinkii ugu dambeeyey ee aan dhammeeyey akhrinta bashqaddii ay ii dhiibtay ayaan ka daba cararay si aan ula hadlo, laakiin waan heli waayey. daqiiqadihii yaraa ay ila joogtay, xushmaddii iyo qadarintii ay ii muujisay ayaa ah waxaan iloobi karin. balse nasiib xumo oo inta aan ku mashquulsanaa akhrinta bashqaddii ay ii dhiibtay ayay iga dheeraatay. isbuuc kadib waxaan arkay taleefankayga oo dhacaya. markaan isku dayey inaan qabto, waaba ayadii. kelmadihii ugu horeeyey ee aan afkeeda ka maqlo waxay ahaayeen, waan ka xumahay inaan is seegno. waan ogahay inaan sabab u ahay kala fogaanshaheena, laakiin jacaylka aan kuu qabo adiga qalbi jabay muddo kadib inuu soo kabsado oo qofkii iloobo waa laga yaabaa. idin kaa soo daadatay inaad iska masaxdo oo ay qallasho waa laga yaabaa. xusuus kugu taagan muddo kadib inaad ilowdo waa laga yaabaa. balse jaceylka aan u qaado qoftaas marnaba ma ahan mid dhimanaya inta aan noolahay. maxaa yeele sida wacan ay iila hadashay, xitaa haddii darbi shub ah lagula hadli lahaa wuu burburi lahaa naxariista ay lahaayeen awgeed. waan ogahay in wakhtigu uu soconayo, waayuhuna ay isbeddelayaan, laakiin jacaylka xaddaafka ah ee aan kuu qaado adiga marnaba ma ahan mid isbeddeli doono. waqtiyadii iigu farxadda badnaa ee noloshayda soo mara waxaa ka mid ahaa wakhtigii aan kula sugnaa adiga amaba aan kula kulmaayay. sidoo kale waqtiyadii iigu murugada badnaa ee noloshayda soo mara waxaa ka mid ahaa markaan dareemay inaad iga fogaato adiga. balse waxaa hubaal ah qof kasta ruuxa uu jecel yahay nasiib uma yeesho.
gasho inuu helo, laakiin wuxuu nasiib u yeeshaa in hal mar si dhab ah uu wax u jeclaado. Su'aasha mar walba aan isweydiiyo ayaa waxay tahay, sidiisaba jaceylka maxaa murugta mataan uga dhigay?